kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ayaa si rasmi ah la wareegtay Neymar iyo Kylian Mbappe oo labadaba ka tirsan kooxda Paris Saint-Germain. Baacsiga Real ay ugu jirtay xidigaha PSG ee Neymar iyo Kylian Mbappe ayaa dhawaanba ahaa mid cirka isku shareeray. Tio ay jirto ayaa xaaladda waxaa dab ku sii shiday imaatinka tababare Zidane kaasoo maamulka Madrid lacago kaashaha ay gacanta u galiyeen. sida saakay ay la waabaristeen wargeysada Faransiiska ka soo baxa PSG ayaa ogolaatay in lacag dhan 500 oo milyan oo wadar ahaan lacag gaarsiisan in ay ku baxaan xidigaheeda. warka ka soo baxaya Faransiiska ayaa intaas waxa uu ku darayaa in Real xidigeeda Bale uu heshiiska qayb ka yahay isla markaana uu dhaqaaqi doono dhinaca horyaalka Ligue 1ka Faransiiska. si kastaba tani waxay war farxad leh u noqonaysaa taageerayaasha kooxda cadcadka. aan ka xumahay haddii goolkan ka dhaliyay sababtoo ah maanta waa maalinka beenta adduunka. haddii aad qosashay fadlan subscribe dheh YouTube-kan.